Pro soldering sida loo alxamo electronicska. Casharkan wuxuu la socdaa casharkii aan kaga hadlaynay toolska ama waxyaalaha loo isticmaalo electronicska. Waxa uu ku xigaa casharkii aan kaga hadalnay multimeterka ayuu la socdaa. Waxaa idiin soo diyaariyey Somtronics. Halkan waxaan ku aragtaan wax loo yaqaano soldering station ama geed lagu alxamo circuitska electronicska ama electricityga loo isticmaalo. Wuxuu leeyahay gacan ayuu leeyahay. Gacantaas waxaa ku xiran geedka kululaanaya ama waxa loo yaqaano soldering tip, geedkii wax alxamaya. Solderingka wuxuu kaloo leeyahay meel ay gelin karto markaad shaqada wado si aadan u kululaan. Waxa uu kaloo leeyahay meel aad ku shuban karto biyo si aad u nadiifiso markaad isticmaalayso solderingkan ood ku nadiifiso. Waxa uu kaloo leeyahay geed halkaas oo bir ah oo asagana loogu talagalay markaad rabto alxanka in aad ka tirtirto tibka aad u isticmaalayso. Waxa uu kaloo leeyahay wuxuu leeyahay naab oo aad ka bedeli karto kuleelka. Masalan mashiinka kan oo kale wuxuu tagayaa 1 ilaa 8 marka waxay ku xiran tahay kuleelka meesha adiga aad rabto inaad geysato iyo alxanka kuleelkiisa aad rabto. Soldering stationkan linkigiisa ama meesha laga helo waxaan ku dhejin doonaa hoos marka linkigaas ka fiiri noocan. Noocyo badan jiro laakiin noocan aniga hadda aan tusaalaha aan ku bixinayaa. Si aadan dhaawac ku gaarin adiga aadan u guban, make sure markasta in solderingka uu dansan yahay markaa rabto inaad shaqo ka qabato gacanta ama tibka aad rabto inaad beddesho. Waxaa important ah markaa shaqo aad qabanayso wax la yiraahdo soldering tipska. Noocyo badan ayaa jiro tipska oo aad u isticmaali karto solderingkaas. Waxaad samayn kartaa markaad rabto inaad shaqo gooni aad qabato. Masalan haddaad rabto inaad ku shaqayso ama aad rabto inaad fiilo weyn aad rabto inaad isku dhajiso 2 fiilo, kan oo kale aad isticmaali kartaa. Marka waxaad samaynaysaa tibka ayaa ka saaraysaa. Marka waxaad gelinaysaa tibka cusub. Marka waa xiraysaa. Marka hadda shaqo waxaa ku qabsan kartaa oo ka duwan shaqadii hore aad qabsanaysay. Masalan waxaa u baahan tahay tib ballaaran oo kale. Marka solderingka important waxaa ah inaad markaad isticmaasho aad iska dheerayso sababtoo ah aad ayuu u kululaataa. Marka safetygaaga waa important. Waxaa kaloo important ah alxanka aad isticmaalayso. 2 nooc ayaa jiro. Labada nooc mid waa midkii hore oo aad loo isticmaali jiray oo aniga xataa sometimes aan isticmaalo because waa markuu dhalaalayo waa ka khafiifsan yahay kan dambe aan ka hadli doono. Noocan waxa uu ku base garaysan yahay LED. Aad ayaa loo isticmaalaa sababtu waxay tahay dhalaalkiisa aad ayuu u yaryahay markaad u isticmaalayso alxanka. Problem kaliya uu qabo waxay tahay LED-ka wuxuu keenaa cancer ayuu keenaa. Tan kalena sanbabaha uma fiicno markii qiiq ka soo baxo. Marka iska hubi markaad isticmaalayso meesha aad u isticmaalayso hawo fiican inay leedahay, faraha iyo gacmaha iyana inaad iska dhaqdo. Waxaa kaloo jira alxan kale oo asaga aan lahayn LED lahayn oo loo yaqaano LED free. Waxa uu kaga duwan yahay noocii hore waxay tahay waa uu ka badan yahay dhalaalkiisa inta ay qaadato. Marka dadka qaarkood waxay rabaan LED free mid ah ayay rabaan inkastoo dhalaalkiisa ay qaadanayso waqti. Kan waxa uu kaloo leeyahay waxa la yiraahdo flux ayuu leeyahay gudihiisa si uu alxanka ugu dhago. Waxa kaloo u isticmaali kartaa alxankaaga waxa la yiraahdo water soluble flux ama paste flux kaasoo tibka alxankaaga aad gelinayso markuu kulul yahay. Wuxuu awood u sameynaya alxanka in uu dhalaalo oo si fiican tibka uu u qabsado ayuu sameynaya. Tan kalena waa uu nadiifinaya. Meesha laga helo hoos ayaan kusoo dhejin doonaa linkigeeda. Waxaa kaloo u baahan tahay wax la yiraahdo soldering sucker kaas oo loogu talagalay inuu solderka meesha ka soo jiido ama ka soo dhuuqo ayaa loogu talagalay. Marka asagana waa fiican yahay inaad haysato alxan markaa haysato si aad shaqo ugu qabsato. Asagana linkigiisa hoos ayaan kusoo dhejin doonaa. Waxaa kaloo u baahan tahay wax loo yaqaano desoldering wick kaas oo sidoo kale oo solderingka meesha ka saarayo markaa rabto inaad alxanka aad ka saarto circuit boardka. Marka asagana wuxuu ka samaysan yahay fiilo oo mesh ah
taasoo dhuuqayso solderka markaa u baahato. waxaa kaloo muhiim aan raba inaan idiin sheego, waxaa u baahan tahay fan. markaa wax alxamayso fan ayaa u baahan tahay oo ka saara hawada meeshaas. taasna adiga u baahan oo caafimaadkaaga ayay ku xirantay, maadaama tibka waxaa ka dhalanaya qiiq badan iyo alxanka qiiqiisi iyo fiiladii iyo wixii aad maaragtay kululeynaysay. marka qiiqaas haddaad hoos joogto sankaaga ayuu gelayaa. marka waxaa u baahan tahay fan ka saaro guriga, hawada ka saaro meesha laabka aad joogto ama gurigaaga. tan kalena dadka guriga kula nool xataa faa'iido ayuu u yahay haddaa alxamayso. waxaan kaloo aniga aan haystaa, haddaa awood u leedahay, geedkan aan aho gacantaydii saddexaad. marka kan wuxuu kuu faa'iideynayaa masalan markaa rabto inaad wax alxanto oo aad rabto fiilo inaad alxamto, masalanba fiiladan oo kale oo aanan gacanta ku qabsan karin, waxaan sameeyaa kan ayaan isticmaalaa. marka awood waxay ii siinaysaa fiiladii inaan soo qaato oo aan fiilo kale haddaan rabo inaan ku alxamo aan markaa soo qaato aan ku alxamo. waana idin tusi doonaa hadhow. marka kana waa important haddaa awood u leedahay oo fiilooyin badan aad alxanto. waxaan kaloo aniga aan haystaa geedkan oo loogu talagalay inuu circuit boardka markaa wax alxamayso uu kuu qabto. masalanba circuit board haddaa haysto oon labadaas circuit board aan rabo ama circuit aan design garaynayo, halka ayuu ii gelayaa. waxaan u baahnaa inaan isticmaalo masalan transistor ama resistor, halkaanaan gelinaya, marka waa wareejisanaya then waa alxamaya. marka kana waa important, waana idin tusi doonaa sida circuit boardka wax loogu alxamo. marka intaas ayaan haystaa. waxaa kaloo kuu raaci karo geedkan oo kale aad u baahan tahay inaad wax ku qabsato ama wax aad ku nadiifsato. waxaa kaloo u baahan tahay haddaa haysato stripper ayaa la dhahaa, isagana wuxuu kadgarayaa fiilooyinka. noocyo badanaa jiro depending fiiladay ku xiran tahay gaugekeeda. kanoo kale waa fiilooyinka weyn, kana waa fiilooyinka yar. marka isagana waa important. alxankii waan daaray, waxaanan geeyey 6 ayaan geeyey. marka kulalkiisa waa sida aniga aan rabay oo kale waa. inta aan wax alxamin, marka hore waxaan soo qaatay xaansho yar si aan idiin tuso hawada meesha si u fiican tahay. sida ujeedaan halkan waxaan ku hayaa faankii ayaan ku hayaa. ujeedadana waxay tahay inaan ku toosiyo meesha wejigeyga uu ku toosan yahay si hawadiisa aysan qiiqa aniga ii soo gaarin. marka taana waa taxadar caafimaadkaaga daraaddiis. halkan waxaan ku haystaa chip silicon ah oo leh 8 lug, halkaana 8 kule 16. dhibicda ujeedaan waa pin 1 ayuu noo sheegayaa. waxaan rabaa inaan ku rakibo circuit boardkan. marka meesha aad rabto inaad geliso raadso, markaas chipka ku toosi lugaha, godka ku toosi. marka waa uu galay. marka laakiin waxaa dhacayso chipka weli hadda ma alxano. marka haddii aad damacdo inaad wareejiso, waxaa laga yaabaa inuu dhaco. dadka qaarkood waxay sameeyaan hal lug ayay qaloociyaan. aniga waxaan sameeyaa inta badan alxan ayaan soo qaataa, lugta ugu horeyso ayaan alxamaa. marka taa awood waxay ii samaynaysaa in uusan chipki uusan dhicin, haddaan xataan gediyo inuusan iga dhicin. marka taasna ayadana waa trick dadka ay isticmaalaan, waa isticmaali kartaa. sidaa ujeedaan lugta ugu horeeya waa alxamtay. waxaa noo haray lugihii oo kale, sidaa ujeedaan empty ayaa ku jiro. marka lugaha kale ayaan alxamayna. waxaan isticmaalaya alxankii haddaa idiin sheegay oo ku base gareysnaa raisinka ahaa oo led freega ahaa. alxankayga tibkiisa waxaan sameynayaa, waan nadiifinayaa intaana isticmaalin si uu u shaqeeyo. alxanka sirta la sameeyay waxay tahay wax yar alxana lagu dejiyaa si uu alxanka markaa u shaqeeyo. marka sidaa rabtaa u bilaabi kartaa, ama dhinacana ka bilaabi kartaa kor, ama halkaana ka bilaabi kartaa. it doesn't matter meeshaa ka bilowda, make sure inuu alxamno. lugta ayaa kululeynaysaa, markaas saasaa u alxamaysaa. make sure alxanka inuu ku toosan yahay meesha lugta aad alxamayso si uu dhalaalo.
hanu ku badan alxanka wax yar un ku daabo. Sometimes hadaa miskareyso ku celceli si uu maaragtay aadna ha uga badan. Sidaa u jeedaan si fiican ayuu alxamay. Marka waxaan sameynaya waa jeegaraynaya laxan inuu meesha ku jiro. Geedkaasaan isticmaalaya si aysan labada lugood aysan isu taaban. Haddii aad dareento in alxanka meelaha qaarkood uu ku yaryahay waa ku celin kartaa. Make sure inaad ku celiso uu si fiican u shaqeeyo. Marka waa oo laxamay circuitkaas sida u jeedaan wuxuuna ahaa chipkaas. Marka taa waxa waaye sida loo alxamo chipka. Sometimes waxaa dhacayso markaa wax alxanto wasakh ayaa ku harto chipka ama meesha aad alxantay wasakh ayaa ku harto. Maadaama alxanka kulalkiisa iyo alxankan halkan uu ku jiro wax la yiraahdo resin ama something maaragtay oo wax ah, waxaa laga yaabaa in wasakhdaas ay ku halaawdo ama waxkaas oo meesha ku halaawdo. Waxaan isticmaalaa aniga alcoholka caadiga oo laga helo farmashiyaasha. Waa soo qaadanaysaa wax yar waxaa ku shubanaysaa koob ayaa ku shubanaysaa. Marka waxaa soo qaadan kartaa brush haddaa brush haysato, haddii kalena geedka toothbrushka oo ka dhamaada ama qof isticmaalay aa soo qaadanaysaa waa ku nadiifinaysaa. Meesha rabta inaad ka nadiifiso wasakhda waa ku nadiifinaysaa. Marka alcoholka waxay ku fiican tahay ma daahayso horey ka tegaysaa alcoholka maadaama ay hawada ay qaadayso. Waxaa kaloo u baahan tahay also haddii aad haysato oo wasakh badan ay ku harto ama aad rabto inaad sii nadiifiso Q-tips geedka la dhaho dhegta loo isticmaalo aa wax yar ku taabanaysaa ha ka badin and then waa kali garaynaysaa meelaha is leedahay wasakh ayaa ka jirto. Marka labadaasna waa nadaafadda markaad chipka aad dhamayso shaqadiisa. Haddii aad haysato ama resistor ama shay laba lugooda leh aad rabto inaad alxanto, marka hore waxaad samaysaa laab fiilooyinka lugta aad rabto labada lugood laab. Markaa raadi meesha aad rabto in aad ku rakibto. Masalan waxaan rabaa geedkan inaan ku rakibo circuitkan uu ku xirmo lugta u dambeyso. Waxaan sameynayaa waa u dhaweynayaa marka waa labada lugood ayaan gelinayaa sidaa u jeedaan. Marka waxaa kaloo aan sameynayaa labada lugood waa laabayaa si aan awood ugu yeesho inuusan resistorkaas uusan dhicin. Sidaa u jeedaan labada lugood waa kuwaasa. Marka sidaan hore idiin sheegay waxaan rabaa hal lug oo resistorka ah inuu ku xirmo lugtaas. Marka waa u dhaweynayaa. Waxaan soo qaadanayaa alxankii maadaama aysan iga fuqaynin. Horta lugta ugu horeysaan xirayaa. Alxanku ku xirayaa. Lugta kale oo resistorkana waa alxamayaa. Marka waxaan sameynayaa waa ku dhijinayaa labada lugood maadaama aan rabo chipka lugtiisa u dambeysa inaan ku rakibo. Marka aad dhamayso waxaa u baahan tahay cutter, then you can cut waad cut garayn kartaa fiilada inta ka hartay. Tan kale haddaa u baahan tahay capacitor asagana sidoo kale labada lugood nooc kale ah oo taagan aad rabto inaad rakibto raadi meesha aad rabto inaad ku rakibto. Masalan waxaan rabaa lugta oo positive-ka inuu ku xirmo resistorka. Marka waa gelinayaa make sure labada lugood inaad raadiso meesha u baahan tahay inaad geliso. Sidii hore aan u sheegay lugihii ayaan laabayaa si uusan iiga dhicin. Marka resistorkii ayaan u dhaweynayaa lugta aan rabo in aan ku rakibo. Marka waxaan soo qaadanayaa alxankii. Marka waa alxamayaa lugtaas. Marka waxaan alxamayaa lugtan capacitorka iyo lugta ku xigto. Marka waxaan ku xirayaa resistorkan rabe inaan ku xiro. Markii aad dhamayso just lugta dhaar plier qaado ka jar. Tan kalena sidoo kale ka jar. Make sure inuusan kasoo taagnayn wax dhaadheer si uusan
hadhow short u keenin. sida ujeedaan waa u alxami. circuitka markii laga fiiriyo dhinaca soldering waa ujeedaan resistorkii, capacitorkii iyo chipkii si isugu xiran yihiin. markaan gediyana waxaad arkaysaan sida kor oo qofka u arki karo circuitkii. capacitorka positivekiisa wuxuu ku xirmay resistorkana waxa uu ku xirmay chipka pin 8 ayuu ku xirmay. marka sidaa ayay u eg tahay circuitkaas. tusaalahan waxaa laga yaabaa laba fiil inay kaa kala go'day ood rabta inaad laxanto. waxaa u baahan tahay stripper. fiilada aad rabto inaad wax ka jarto wax yar ayaad afka aad ka fiiqaysaa. tan kalena sidoo kale in la egoo kale ayaa fiiqaysaa. marka make sure fiilada hadday tahay fiilada kala daadsan oo kala firdhisan, make sure inaad isu aruuriso. isku aruuri. marka waxaan sameynayaa alxan yar ayaan ku dhegsanayaa. waxaan samayn karaa fiilada mid intaan ku qabsan karaa gacantayda saddexaad. wax yar alxanaan soo qaadanayaa aan marinayaa si ay hadhowda iigu dhib yaraato inaan tan kale aan ku dhejiyo. tan kalena sidoo kale wax yar alxanaan marsanayaa iyadana. marka waxaan sameynayaa labada waa isu dhaweynayaa. alxanka haduu ka badan yahay waa ka yareynayaa. saas ayaa fiilooyinkana la isugu dhejiyaa. marka sidaa ujeedaan fiiladaas si fiican ayay isugu dhigtay.